hagaag waxaan maanta isla eegaynaa barnaamij ku saabsan lacagaha la sheegaya ee ah $1,400 stimulation jeegii afaraad inuu iman doono. haddaba maxaa ka jira arrinkaasi? yes, waxbaa ka jira, hase yeeshee sharci ma ahan. wax markaa ay baarlamanka ay soo maraan ayay sharci noqdaan. hase yeeshee waxaa jira hint wax la dhaho. hint ayaa jiro hadda. webigu wuu soo maaxanayaa, ceelku wuu soo maaxanayaa, soo ma ahayn. so dhowaan ayay ahayd markii qaar ka mid ah senatarada dimuqraadiyiinta ama baarlamanka ku matala maraykanka dimuqraadiyiinta ay codsi u direen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa Biden iyo Kamala Harris in ay maaragtay waxay u direen warqad codsanaysaa in jeegii afraad bulshada maraykanka loo diro. horaantii January waxaa jirtay senataro ayagana madaxweynaha ka codsaday in paymentiga la siinayo, dadka kashka la siinayo laga dhigo cash monthly ah. taa iyadoo jirta ayaa haddana xildhibaanadan waxa ay dowladda ka codsadeen, ay weydiisteen in especially madaxweynaha ay weydiisteen in la process gareeyo, la push gareeyo, la dhaqan geliyo jeegii afraad stimulation jeeg for in bulshada maraykanka lala wadaago, la siiyo. tiro ku dhow 21 dimuqraadiyiinta ka tirsan oo uu hogaaminayo nin la yidhaahdo Ron Wyden oo senator ah ayaa waxa ay push gareynayaan in $1,400 mar kale maaragtay bulshada maraykanka lala wadaago. waxayna aaminsan yihiin kooxdani in mar kale ay muhiimadda tahay in la siiyo dadka maraykanka. mar afaraad aysan weli dadka maraykanka aysan enough ku ahayn in ay helaan lacagta taasi. lacagta waxaan ka hadlayaa saddexaad oo keliya, koowaad, labaad, saddexaad oo keliya, hase yeeshee ay mudan yihiin ilaa iyo mid afraad in la siiyo. horaantii January saan horey u sheegay 53 xildhibaan ayaa madaxweynaha u gudbiyey in jeeg afraad la sameeyo. sidoo kalena xataa waxay codsanayeen oo weydiintoodii ahayd oo madaxweynuhu ay ka gadayeen in monthly laga dhigo, monthly payment, wax bil walba ay bulshada maraykanka qaadanayso in laga dhigo. taana way jirtaa. 21gan xubnood ee baarlamanka ka tirsan maraykanka senatarida ah ayagana waxa ay soo gudbiyeen in khamiistii ayay soo gudbiyeen in mar afaraad dadka maraykanka la siiyo $1,400 loogu talagalay. so iyadoo sheekadu sidaa tahay, run ahaantii madaxweynaha sida la sheegayo isaga ma diidana sheekadan inay hawshu sii socoto oo mar afaraad la qaato. hase yeeshee waxa mar walba maaragtay hortaagan dimuqraadiyiinta kuwan republikaanka ah ee 90% gabi ahaanba xataa u badan kuwa taajiriin ah, islamarkaana wax jaxanjax aan ka lahayn dadka maaragtay tabarta yar oo annaga oo kale ah. mar walbana waxay isku dayaan inay hor istaagaan. haddaad dib u laabatid kii saddexaad marka broseskiisa lagu jiray may codaynaynin, xataa ayaga may codaynin, way ka aamuseen, waayo waa lagaga badan yahay baarlamanka, sida darteed ayay u aamuseen. haddana maaragtay programkan 21gan dimuqraadiyiinta ayaa buush garaynaysa in hawshan la ansixiyo oo hawshu proposalka la diyaariyo. so proposalka marka sidee loo diyaarinayaa weeyaan? waxaan waa hindisaha waxay ka imaataa qaar ka mid ah baarlamanka. baarlamanka waxay u gudbinayaan madaxweynaha.
madaxweynaha wuu soo ogolaanayaa kadibna waxaa loo dhiibayaa baarlamanka lagu soo celinayaa baarlamanka qeybtiisa waxaa lagu soo celinayaa dhanka dhaqaalaha u qaabilsan guddiga dhaqaalaha baarlamanka u qaabilsan senatarada weliba especially aqalka hoose u qaabilsan ayaa lagu soo wareejinayaa marka ayaga ay soo gaarto si fiican ii dhegeysa bartaas waa muhiim inaad fahantid marka bartaa ay soo gaarto ayaga ayaa dood ka yeelanaya dood markay ka yeeshaan kadib waxaa lagu wareejinayaa haddii ay approve gareeyaan aqalka hoose oo dhan ayaa haddana ka doodayo ayagiina maaragtay hadday approve gareeyaan waxay toos u noqonaysaa aadaysaa aqalka sare ayay aadaysaa aqalka wakiilada maraykanka aqalka sare markay aado way ka soo doodayaan ayagana markay ka soo doodaan kadib haddii ay soo ansixiyaan waxaa lagu soo celinayaa aqalka hoose ayaa mar kale lagu soo celinayaa si ay dib u eegis ugu sameeyaan isla markaana mar labaad ay u ansixiyaan marka ay ansixiyaan igaraale ahaada markay ay ansixiyaan kadib waxaa loo dirayaa madaxweynaha ayaa isagana ansixinaya markaa kadib ayaa qolyaha irsta ay soo diri doontaa lacagta sidaa ayay habka silsiladaas weeyaan horta in aan silsilada yar aan fahamno aad bay muhiim u tahay so haddaan ku celiyo $1,400 ee mar kale mar afaraad la doonayo in processkeeda la galo waxaa hindisay 24 ka mid ah maaragtay dimuqraadiyiinta oo uu hogaaminayo nin la yiraahdo Ron Wyden iyo Elizabeth ayaa hogaaminaya programkaas waa 21 xubnood waxayna ay rabaan mar afaraad in dadka Mareykanka la siiyo isla lacagtii hore loo siiyey oo ah $1,400 oo householdiga iyo caruurtaba ay qaadan doonaan waxyaabo kalena waa ay jiraan hase yeeshee waxaa hadda miiska saaran oo la buushgareynayo oo la bisleynayo waa inta oo la doonayo in ay sheekadu socoto hase yeeshee warqadan madaxweynaha ayaa loo diray ku talagal xasuusanaaw hadhihin lacagtan waa diyaar hadhihin okay hase yeeshee madaxweynaha ayaa loo diray madaxweynaha wuu arkayaa oo maaragtay hadduu aqbalo codsiga 21 xubnood kadibna maaragtay sidaan hore idinku sheegay processkiya la marayaa marka briefkaas yar ayaa jiro barnaamijyo kale oo aan ka hadli doono oon soo duubi doonana way jiraan insha allah waa mahadsantihiin haddii muuqaalkan uu kusoo gaaray asxaabtaada la sheergaree waana ku mahadsan tahay inaad mar walba igu xirantaada daawatid intaan dib dambe u kulmi doono waa walaalkiina shaaciye oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu